qof kale ayaa warbixinta Aljazeera ay ka qortay Soomaaliya aragtidiisa ku cabiray sidan: waxaan ahay Ethiopian, waan ogahay in Soomaalidu ay tahay dad howl badan, waxay Afrika ka noqon karaan awood jirta, balse waa in la muujiyaa dhinaca san ee Muqdisho. waxaan idin rajaynayaa nabad iyo baraare. aragtidan kale ayaa waxay leedahay waxa la yaab leh in qayb guri ah oo Muqdisho ku yaala lagu leeyahay $700 halka lacagtaas guri looga ijaaran karo New York. waad ogtihiin farqiga u dhaxeeya GDP-ga labada magaalo. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo sanadihii u dambeeyay sameynaysa horumar kala duwan ayaa telefishinka caalamiga ah ee Aljazeera waxa uu ka sameeyay qoraal dheer oo ku aadan isbeddelka dhinaca dhismaha ee ka socda magaalada Muqdisho iyo qiimaha guryaha lagu kireeyo oo qaali ah. waxa ay diiradda saareen sida dhismayaasha cusub ee cirka ku tolan aanay u caawinaynin dadka magaalada marka la eego dhinaca sicirka. Muqdisho oo 10 sano ka hor filada xiran lagu kireysan jiray $50 ilaa $150 oo qura iyo wax aan ka fogeen ayaa haatan meelaha qaar halkii qol kiradiisu waxay ka badan tahay $100. weliba waa sicirka dhexe ee meelaha qaar intaas waa uu ka badan yahay. waxaa kale oo qoraalkan lagu taabtay in magaalada Muqdisho marka laga soo tago sicirka guryaha ay misana tahay meesha ugu koronto qaalisan adduunka. arrintan ayaa dhaqaaliyahanadu marar badan isweydiiyeen maadaama caadiyan sicirada lagu sargooyo awoodda wax iibis ee shacabka. ha yeeshee Soomaaliya oo ka mid ah meelaha dunida ugu faqirsan ayaa misana waxaan isla socon sicirka suuqa iyo tabarta shacabka. waxaana warbixintu ay eeda saartay in dalku uusan lahayn nidaam sicir oo xakameeya. Aljazeera English ayaa warbixinta ay ka sameysay isbeddelka dhanka dhismaha iyo horumarka ka socda magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda waxay ka dhiibtay ajaanib kala duwan oo ka soo jeeda wadamo badan oo caalamka. waxaana dadkaas qaarkood ay la yaabeen dhismayaasha Muqdisho iyo in nolol iyo dhismayaal noocan ah ay Soomaaliya ka jiraan. qaarkood ayaa waxa ay yiraahdeen sidan: haddii dalkooda uu sidan u qurux badan yahay isagoo dagaalo ay ka jiraan, ka warama marka ay nabad buuxda helaan. qof kale ayaa yiri waa markii ugu horeysay ee aan abid wacaal wanaagsan ka maqlo Soomaaliya. dhac, dagaal iyo burcadbadeed ayaan ka maqli jiray Soomaaliya. waan jecelahay inaan maqlo Afrika oo soo kabanaysa. waagii hore war murugo leh oo Muqdisho ka yimid ayuunbay ahayd. ilaahay ha barakeeyo Afrika, gurigayga, qaaradayda. warkii ugu horeeyay ee aan ku farxo oo Soomaaliya aan ka maqlo weeye. waan ogahay meelo qurxoon inay Soomaaliya leedahay, laakiin warbaahinta shisheeye ma muujiso bilicda dalkan. waxay muujiyaan argagixisanimo, dagaalo, xagjirnimo iyo abaar kaliya. waxa ay la mid tahay dalalka kale ee Afrika. horumarinta hantida iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayaa ku soo badanaya Soomaaliya iyo Afrika oo dhan. si kasta ha ahaatee, qiimaha guryaha waa in wax laga bedelo. qof kale ayaa warbixinta Aljazeera ay ka qortay Soomaaliya aragtidiisa ku cabiray sidan: waxaan ahay Ethiopian, waan ogahay in Soomaalidu ay tahay dad howl badan, waxay Afrika ka noqon karaan awood jirta, balse waa in la muujiyaa dhinaca san ee Muqdisho. waxaan idin rajaynayaa nabad iyo baraare. aragtidan kale ayaa waxay leedahay waxa la yaab leh in qayb guri ah oo Muqdisho ku yaala lagu leeyahay $700 halka lacagtaas guri looga ijaaran karo New York. waad ogtihiin farqiga u dhaxeeya GDP-ga labada magaalo. reer galbeedka waxaa lagu eedeynayaa inay iyagu abuuraan jabhado oo ay hubeeyaan si ay xasilooni darro uga abuuraan dalalka Afrika. ugu dambeyntiina ay uga faa'iideystaan inay xadaan kheyraadkooda dabiiciga ah. weligay war wanaagsan kama maqlin Soomaaliya dhowr iyo 10 sano marka laga reebo cunto yari iyo weerar argagixiso. laakiin waxaan wada ognahay in reer galbeedku ay dhibaatadaasi oo dhan iyagu huriyaan. waan ku faraxsanahay inaan arko qaranka Soomaaliya oo soo kabanaya. dadka aragtidooda ka dhiibta warbixinta sidoo kale waxaa ka mid ah qofkan oo yiri waxaad arki doontaan howlkarnimada iyo daacadnimada Soomaalida. Soomaaliya waxaan idin rajaynayaa guul. Afrika oo dhan baa idinka macaashi doontaa marka aad cagihiina isku taagtaan. si kastaba warbixinta Aljazeera English ayaa muujinaysa isbeddelka horumarineed ee caasimadda ka jira iyo caqabadaha barbar socda. Cabbaas Xuseen Muuse, RTV, Muqdisho.